maanta xalanay ku jirtaa 35 sano kadib xalanay ku jirtaa halkaasaa loogu garnaqayaa cunahays haysataa shacbiga Soomaaliyeed uu ku dul baaba'ay guryihii baa laga soo wada saaray waa ogtihiin dhibaato dawladnimo haysta waa ogtihiin ciidamo shisheeye dul taagna waa ogtihiin fiqi hadal iga tagaya ma jiro waayo wuxuu ka mid yahay dadka aynu TikTok ku aragnay faraha badan ee noocyada badan mid ka mid ah bulsha ay Soomaaliland gaadha micnaheedu ma aha dhibaato Soomaali soo korodhay ma aha dhibaato Djibouti soo korodhay ma aha dhibaato Jaar ku soo korodhay ma aha bulsha aynu gaadhnaa waa guul shacbiga Soomaaliland meel uu joogaba uu gaadhay anigu ninka uma jawaabo wararkiisana ma dhageysto maalmihii ugu horeeyay ee warar ka soo duulduuleen markaan ogaaday siduu u fakarayo ninka waxaan ku tala galay inaan wax jawaabo sinade siyaasi Cabdilaahi Dahab baa hadda barbarkayga taagan oo ka mid ah mas'uuliyiinta ka soo qayb galay xuska sanad guurada 35aad ee 18 May Cabdilaahi soo dhawow bal ugu horeyn fariinta aad u dirashay shacabka Soomaaliland iyo munaasabadaba aad iyo aad baan u dhawahay wariye ma sha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim maanta 35 guurada ay ka soo wareegtay dib loo soo noqoshada xorriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii muddo dhowr iyo 60 sanaba aanu iminka halgankeeda ku jirnay aad iyo aad baan ilaahay ugu mahadcelinay marka koowaad marka labaad shacbiga dhabarka adag ee sabirka badan ee runtii guusha dhaliyay ayaan u mahadcelinayaa marka saddexaad ciidanka qaranka oo ciidanka aynu ku tiirsanahay ee ilaaliyay xorriyaddan iyadoo meelo badan looga soo dhici lahaa ayaan u hambalyeynay iyagii xaasaskoodaba waxaan sidaas oo kale u hambalyeynay dhammaan golayaasha qaranka waxaan u hambalyeynay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan oo runtii wax weyn ka bedelay hab socodkii iyo qarannimadii Soomaaliland sidaan u daawanaynay ciidamo tayalana runtii sameeyay waxaan kale u mahadcelinayaa ururada bulshada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ayaan leeyahay hambalyo iyo bogaadin sanadkiisa waxaan idin rajaynayaa barwaaqo iyo horumar iyo inagoo gacmaha isqabsanna waxaan si gaar ah halkan aan kala hadlayaa shacbiga reer Sanaag oo ah shacbi runtii qiimo badan sabir badan jamhuuriyadda wax badan haddaana iyagu jirin aanay jirteenba shacbigaasi dhul aad u ballaaran ayuu difaac kaga jiraa waxa uu shacbigaasi u soo dhabar adeegay taariikhdii adkayd ee qarannimada Soomaaliland ay lahayd ee ay soo martay ayuu soo dhabar adeegay shacbiga waxaan leeyahay walaalayaal maanta waxaynu u baahannahay inaynu horumar gaadhno horumarkan waxa lagu gaadhaa nabad baa naas la nuuga leh markaynu nabadda keenno horumarku wuu imanayaa iyo inaynu la tartanno ummadaha kala duwan ee ku nool shucuubta kala duwan ee gobollada ku nool Soomaaliland waxa inaga khaldan hadda ilaa hadda markaan eego waxa weeye waa xaggii nabadda alla nabadda haynoo siyaadiyo nabaddaasaan leeyahay insha Allah aynu ku faraxdeegno aynu iskaashanno innagaa dalkeenna iyo dadkeennaba la rabaa inaynu ka badbaadino darxumada gaajada iyo dhibaatada marka walaalayaal bishii xurmada lahayd baynu gallay 10kii cishaynu gallay dhiigga islaamku waa xaaraan gacmaha aynu isqabsanno walaalowno iscafinno ayaan iyagana leeyahay insha Allah billahi karim way Soomaaliya oo kale markasta oo Soomaaliland wax u soo kordhaa way ka xanaaqdaan bal adigu Soomaaliya iyo dawladda fariinta aad u diraysaa maxay tahay Soomaaliya maanta waxa kaaga filan maanta xalanay ku jirtaa 35 sano kadib xalanay ku jirtaa halkaasaa loogu garnaqayaa cunahays haysataa shacbiga Soomaaliyeed uu ku dul baaba'ay guryihii baa laga soo wada saaray waa ogtihiin dhibaato dawladnimo haysta waa ogtihiin ciidamo shisheeye dul taagna waa ogtihiin rajo u muuqataa way yar tahay ilaah waxaan uga baryaynaa iyagoo inuu dhibaatada ilaahay ka qaado oo ka saaro innagana guusha inoo siyaadiyo sida uu madaxweynuhu khudbadiisa ku sheegayna guusha ay Soomaaliland gaadha micnaheedu ma aha dhibaato Soomaali soo korodhay ma aha dhibaato Djibouti soo korodhay ma aha dhibaato Jaar ku soo korodhay ma aha guusha aynu gaadhnaa waa guul shacbiga Soomaaliland meel uu joogaba uu gaadhay oo runtii macnale weeye marka dadka kale tana baraaro u ah Soomaaliya iyo wadamada Jaarka iyo Djibouti iyo wadamada Jaarkaba u aweeye marka waxaan leeyahay waxba ha ka nixina nala qabta gacmaha guusha oo midaynu wada leenahay baraadheeda wada helayno shacbiga Soomaaliyeed waxaan leeyahay insha Allah nolol wanaagsan iyo barwaaqo iyo kala ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland marar badan dhaliila bal ka waraysiga fariinta u dirayso anigu ninka uma jawaabo
wararkiisana ma dhegaysto maalmihii ugu horreeyey ee warar ka soo duulduuleen markaan ogaaday siduu u fakerayo ninkaa waxaan ku talagalay inaanan wax jawaababa siin adeer ayaan ku talagalay waayo bini aadanka waxaa lala hadlaa qofka fahmaya mas'uuliyadda uu hayo iyo hadalku odhanaya intay isu leegyihiin marka fiqi hadal igaga tegayaa ma jiro waayo wuxuu ka mid yahay dadka aynu tiktoka ku aragnay faraha badan ee noocyada badan mid ka mida wey